wanaagsan maalin wanaagsan waqti walba ee ku tahay wanaagsan soo dhawaada asxaabta nagu xiran janaalkeena asxaabta nagu cusub waxaan ka codsanaynaa in noo saartaan subscribe-ka noo saara kuwa hore noola joogana like-ta nagu dhiirigeliya iyo qoraalka quruxda badan inna lillahi wa inna ilayna raaji'un allah u naxariistaan leenahay walaasheen oo ku dhimatay maanta Soomaaliya Puntland Garowe tacsi waaye tiiraanya leh الله ونحرستان لين هاي بل وحير بوليس أو كور بحنايا بلنا الله دعوة دوله يرادو عليه وصحبه وسلم ما أنت تاريخ هاي أفريقيا في شيء في برايا لما كن يكوي لاتن فحان هل كان صحافة دا أنا رواينا كلها الله أنا رواينا بحين كوان عن كسيو دعوة ما أنت كدعوة مقالة الجروي oo ay ku dhimatay gabar magaceeda leeyahay Anisa Cabdicasiis Ciid geeridaas oo ah mid xanuun badan marka hore waxaan rabaa inaan tacsiil la wadaago eheladii iyo qaraabadii iyo waalidiintii iyo dadka ay ka geeriyootay waxaan leeyahay inaan ilaahay raaji'un ilaahay samireen haga siiyo ilaahay naxariistii janna ilaahay ka waraabiyo waxaan rabaa inaan xogaa iftiimiyo kiisku sidoo u dhacay kiiskaasi gabadhaas waxa ku dhacday xabad baastoodeed oo sida la sheegay ay ka dhacday wiil ay wada socdeen oo magaciisa la yiraahdo Nadiir Bile Ali dadkaasi dhalinyarada waxay la socdeen gaari waana wada socdeen sida muuqata hab nabadgelyo ay markaa ku safraayeen magaalada dhexdeeda Garowe waxay ahayd dad dhalinyaro oo saxaafadda filmaan iyo sidii maartay baraha bulshada waxyaabaha lagu wacyigeliyo ka shaqeeyo ay ahaayeen kadibna waxa weeye dhowr qof ay ahaayeen afar qof ay ahaayeen laba gabdhood iyo waxa la socday loo wiil oo kale sidaa darteed dadkii oo dhan uu ka mid yahay ninkii xabaddu ay ka dhacday Nadiir Bile Ali waxa gacanta ku haya booliiska iyo gaariga ay wateen xabadii ay baasolda ka dhacday dhammaan qalabkii oo dhan waana la baarayaa waxay ku jirtaa baaris insha Allah waqti aan dheerayn waxaan soo bandhigi doonaa baaristooda ee galkoodii iyo taarkii ugu horeeyay warbixintan waxaan u diray xeer ilaalinta sidaa darteed waxaan rabnaa dadweynaha inaan u iftiimino kiiskaas sida uu dhacay sidaas uu dhacay waana wax kooban oo gacanta lagu hayo dhammaan marag iyo marag muujintii iyo dadkii iyo ninkii eedaysana ahaayo xabadda ay ka dhacay dhammaan saasaan rabaa inaan u caddeeyo dadweynaha saxaafadda horteeda aan ka sheegaya wixii intaa dheer xilliga kiisku uu soo gabagabo gungaarka la sameeyo oo hay-adaha garsoorka loo gudbiyo baan insha Allah saxaafadda u soo bandhigi doonaa intaasaan rabay caawa inaan saxaafadda aan ka sheego aad baan mahadsantihiin assalaamu calaykum waa su'aal macquul ah bastoolada sida sheegay waxaa laga soo qaaday nin kale oo aan markaa goobta joogin gaariga la socon baa iska lahaa mulkiyadeeda isagina waa la soo qabtay oo xiran yahay dadka xiran ayuu ka mid yahay إن شاء الله سيد وكوجل يسوي كل قاتين وجدد ماشي سوي كتيرنا والله بارد أنا هدي على إنه جوابت أنا لسه صار دونا نكاس كل السنة شيء لا وهايو كم بدأ دتك ما عرفتي إيد الله يستي لكن نمرك جوابت شوي كم ما وصلنا هين ما يغرال هو كيس كاسو ninka xabadu inay ka dhacday waa la ogyahay waana wax maaragtay oo booliiska u cad in xabadu isaga dhacday والله xabadu sida ay u dhacday hadii anu meesha ma joogin laakiin xogta aan helaynay waxa weeye كل أنت شلوا دعاء شلك سكست هود
laakiin anigu hadda ma rabo sidii uu dhacay inaan ka hor dhaco sababta waxa weeye kiiskan waxaa warta kiis waa dhacaa laakiin maxaa laga qabtay mar haddii la qabto booliska oo warbixintii aniso siday u dhimatay sheegayo inay xabad ku fakatay iyadoo howlahooda shaqo ku dhex jiraan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun aan leenahay ilaaha u naxariisto waxaa waaye geerida xaq waaye laakiin waa geeri naxdin leh qof howlaheeda shaqo iska soo aaday dhalinyaradii la socotay mid kamid ah xabadda uga fakatay ee filimka wada jilaayeen dad la wada yaqaano waaye ilaaha u naxariistaan leenahay ilaahay naxariista jannaad ha geeyo inna lillahi wa inna ilayna raajicuun waa tacsi tiiraanya leh waa tacsi murugo leh waxaan la wadaagaynaa ehelkeeda waxaan la wadaagaynaa asxaabtii ee la shaqay jirtay asxaabtii ku xirneed intaba waa la wadaagaynaa waan uga tacsiyeynaynaa allah u naxariista ayaan leenahay insha allah fiidowga ku xigo annagoo caafimaad qabo iyo idinkoo caafimaad qabtiin dhammaantiin insha allah mac salaamo haween wanaagsan amba maalin wanaagsan waqtigay doonto fiidowga aan fiirsatid mac salaamo u duceeya maskiintaasna insha allah mac salaamo ilaahay naxariista jannaad ha siiyaan leenahay ehelkay ka tagtanay sabar iyo imaan allah ka siiyo